ku dhawaad 15 qof ayaa ku geeriyooday halka dad intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen kadib laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad dadka ilaa hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxaa kamid ahaa 4 qof oo kamid ahaa shaqaalaha TV-ga Universal oo ku jiro wariye Cawil Daahir Salaad. Waxaa kale oo dhaawac uu soo gaaray xildhibaan Warsame Joodax oo isagana ilaaladiisa qaar kamid ah ay ku dhinteen qaraxaasi. dhanka kale qaraxa labaad waxaa ku dhaawacmay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir waxaana uu ka dhacay agagaarka taalada Daljirka Daasoon. sidoo kale waxaa jira dad badan oo rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxyadan maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay madaxii howlgalkii qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qof waday gaariga labaad ee qarxay. qoraal lagu daabacay Twitter-ka hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in labadaasi qof lagu qabtay howlgal sida ay sheegtay ay ka qayb qaateen dad shacab ah. NISA waxa ay sheegtay in qaraxa labaad uu qarxay iyaga oo gacanta ku haya isla markaan uu qarxay xilli laga fogeeyay dadka shacabka ah. Cabdullaahi Gacmo, Som News TV, Muqdisho.